baan ku idhi timaha xaggana waad ka xirtay xaggana waad ka xirtay iska daa markaasuu idhi sheekh timuhu madaxaygay ku yeelin anaa iskale buuli se uga dhaadhicin ilaahay baa ku siiyey ilaahay caza wajalla wax walba uu inoo caddeeyo laa ikraaha fi ddiini qad tabayana alrushdu min alghayy maaha diintu wax waa lagu caddeeyey weliba ilaahay qudradiisa waxaa ka mida shareecad markuu ilaahay soo dejinayo dadka markaaba qasab ku qaata kama bilaabo dacwad buu ilaahay ka bilaabay risaaladiisa dacwad nebiyaa ilaahay soo diray dadka ku dhex jiray marka horeba oo la hagaajiyo ilaahay toosiyey kuwaasaa markaa kule annagana nagu dayda ilaahayna sidanuu ini leeyahay sidan yeela xumaantana ka kaalaya labadaas shareecadaha islaamku labadaa bay la imanayaan macruuf iyo munkar bay macruuf wa amar iyo nahyi bay la imanayaan labadaaba nebiyaduna way ku dhaqmaan marka horuu dhaqanka wanaagsan ilaahay bay iyaga ku toosiya marka shareecadda dhan ee islaamka ka bilaabaysa dadka diinta in la jeclaysiiyo markaasaa ilaahay yidhi qad tabayana arushdu min alghayy weliba waa laynii kala caddeeyeyba dariiqaasi waa xaq raac askari qori kugu hayo dariiqa markule ma jiro mu'adinku uu ku eedaami dhagahaaguna way maqlayaan culammadu waxbay kuu sheegi lacag iyo mushaahar adiguma siinaysid jamaacadada ducaaddu meel kastay noogu imanayaan wayna leeyihiin ilaahay ka baqa masaajidada inoo raaco diinteenna han ku dhaqanno waa ku liibaanaynaa lacag iyo mushqaayadna adiga kaama rabaan waxaasoo dhan waa maxay qad tabayana arushdu min alghayy weeyaan xaqii baa lagu caddaynayaa mu'adinku waa daaci caalimku waa daaci muslimka isxilqaadee diinta ka shaqaynaya waa daaci habeenkiiyo maalintu waa dacwad habeenka dhan baa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo maalintii baa ku leh aayad baan ahay ilaahay i abuuray igu garo daruurta da'aysaa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo dhulkaas socotaa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo biyahaad cabbaysa ayaa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo badda halkaa taagane aan soo dhaafayn ayaa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo neefka geela eed ilmihiisa ku sii daynaysid sidaad ka qabanaysid ee ilmahaaga caanaha aad uga maalanaysidee ku eegaya ayaa ku leh aayad baan ahay ilaahay igu garo buu ku leeyahay qofka waalan ead arkaysid ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo qofka faalisku ku dhiftay ee lugtiya gacantu fadhiisatee maydka qaybta dhan shalalku ku dhacay dhakhtarada jiifa ayaa kule aayad baan ahay ilaahay igu garo shalay aniga waan caafimaad qabo sidaadaan u socday ilaaha sidaa aniga ii jiifiyey adigana uu ku jiifin karaaye ha caasina ilaahay ka baq buu ku leeyahay lisaanulxaal buu kugu leeyahay lisaanulqaal kuguma leh laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta dhallinyaradaha wuxuu leeyahay sheekh dhallinyarnimada haygaga ciyaarin buu mid iga yidhi dad baan ku dhawarna raaco dacwaddo wuxuu idhi sheekh inninkuba dhallinyaradiinna waa soo marteene waa xilliga egeenna daa buu yidhi markaan da'diinna gaadhaan masaajidda soo galaynaaye oo waxaad ogaatay cimrigaaga adduunyada aad ku joogtay miyaad ogaatay intuu yahay inta ku hadhay ilaahay hanu soo noqonaha toobadkeen